trophylessness which will run now to at least 6 years. habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiin ma meel walba joogtaan si walba maqalka gool ee fimidiin soo gaaray waxaan baqaadi doonaa kulamada caawa min la liiga min horyaalka Premier League ee dalka England. Leicester City naadiga Manchester United ciyaarkii imaanaysa magaalada Manchester gaar ahaan garoonka Old Trafford. sidoo kale ciyaarkii imaanaysa Celta Vigo garoonkeeda ay la leedahay naadiga Real Madrid. Real iyo Celta Vigo waa ever Leicester City naadiga Manchester United waa ever afar wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan dhageysanaya maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Leicester haddii aan eegno ciyaartooyda u safan ciyaarta ka imaanaysa Old Trafford golahayo waa Kasper Schmeichel, John Evans, Castagan, Justin. ciyaartooyda kale u safan Leicester City waxaa ka mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Van Mendy, Talamales, James Maddison, Haaland, Barnes iyo Ilhecho ayaana u safan kooxda Leicester City. Devils waxa u safan David De Gea, Rafael Varane, Harry Maguire, Lucas Shaw, Diego Dalot, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay, John Sancho iyo Elanga ayaa u safan kooxda kubadda cagta ee Manchester United. markaana Leicester si wacan ciyaaraan Barnes ayaa sita Leicester ayaa duulana markaa Leicester waa la baasi Ilhecho hole Messi qolku badaasi Barnes shuud cajiib ayuu gabi ciyaaraanka Leicester City laakiin sameeysan noqon isku dhiib cajiib ah aragtiyo la isku darsado oo noqon karta gool in loogu dhaliyo kooxda Red Devils. si walba u baastaan si walba u xarfaaniyaan kubadda ugu dambeyn meecila ay ku dhamaatay. Leicester daafacay ka soo ciyaaraysa markaan Evans ciyaaryahan Vavan fursad kale cajiib markaan Manchester ayaa cajiib Messi Kasper Schmeichel ayaa badbaadi kubaddaasi fursad cajiib ah yeelan kooxda Red Devils laakiin sameeysan noqon markaan Leicester ay duulana laakiin David De Gea, Rafael Varane wala baasi kubaddan xil ciyaareed kala uu kuulaatan 22 kulan markaan fursad cajiib Ilhecho Messi Allah maxay fursad cajiib ah brilliant opportunity ayuu ciyaaray Ilhecho. United ka lagu ciqaabi karo kubaddan United ka gool ayaa lagu dhali karo kubaddan laakiin waxa ka saaciid lugta bidix ciyaaray Ilhecho sanada 2022 Karim Benzema 26 kulan 23 gool ahsan ciyaaryahan waa sanadkii la soo dhaafay iyo xilli ciyaareedkan isku goolal sanadkii la soo dhaafay 34 kulan 23 gool 26 kulan 23 gool waqti fiican ayuu ku jira ciyaaryahan Karim Benzema cidna ma garaaci karto no to beat it. Leicester City goolkii kubadda ciyaarta Ilhecho ayaa ugu shubay kooxda kubadda cagta Manchester United. Leicester City 1 Red Devils 0. Kelechi Iheanacho with his 4th career goal against Manchester United. He picks on them. And right now, United feel as though the whole world is picking on them. They trail at home again. Absolutely brilliant from Leicester. United counter. It starts with Dewsbury Hall working so hard defensively to win that ball ahead of Bruno Fernandes. Dalot plays Maddison on. Asaanka ayaa loogu shubay markaan magaalada Manchester waxay noqon kartaa caawa habeen mugdi ah. James Maddison ayaa noogu shubay araadi madax soo qaaday ugu dambeyn madax waxa ku sii dhameystiray ciyaaraha Ilhecho. Real Madrid gool kulaadkii waa laga qabtay Karim Benzema laga qabtay gool kulaadkii caawa Ilhecho mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican kooxda kubadda cagta ee Leicester City. ciyaaryahan Ilhecho ayaana ugu shubay kooxda kaas oo dhashay dalka Nigeria 3 Oktoobar 1996 wuxuu soo ciyaaray Manchester City xilligaana Leicester City ayuu qayb ka yahay 2017 ayuu ku soo biiray kooxda dabacooyinka. asaanka ayaa loogu shubay markaan Clorian goal ayuu ahaa Pit waa Pessi goal ayuu ahaa
Evans ayaa laga saraa Mate ayaana ciyaarta ku soo biiray United Canel Leicester City 1 hadduu maqan yahay Jamie Vardy no problem hadduu maqan yahay N'Golo Kante no problem hadduu maqan yahay Riyad Mahrez no problem hadduu maqan yahay Harry Maguire no problem hadduu maqan yahay West Morgan no problem hadduu maqan yahay dhowr ciyaaryahano waaweyn ah no problem Leicester is Leicester ciyaaryahanka dhaliya kooxda Manchester United Bruno Fernandes markale rajo goolka ku barbadhaca ciyaaryahan Fernandes ayaa u shubay Leicester City United goal Leicester City goal An unlikely scorer. I said he's enjoying this position, the number 8 role, the ability to get himself forward. Leicester trying to play out from the back. It's a quick response from United after going a goal behind. He's involved in the build-up. It's a little 1-2 with Bruno Fernandes, whose shot just gets away from Kasper Schmeichel. He'll look back and think he maybe should have done a bit better with this. ugu dambeyn ciyaartu waxay noqotay barbadhac hal ayay noqotay waxaana gool ugu dhaliyay Manchester United Rodrigo de Paul Santos Fred waxay deg u dhashay dalka Brazil 5 Maaj 1993 waa 29 sano jir marka la dhigo Real Madrid waa gool kalaadkii saddexaad caawa laga dhigay Real Madrid loo dhigay Real Madrid Celta Vigo laga dhigayo hal uu dhaliyay Karim Benzema mid waa laga qabtay kii saddexaad ayaa loo dhigi doonaa ciyaaryahan Fred waa ciyaaryahan qiimahaan ugu fadhiya kooxda Manchester United 59 milyan halka ciyaaryahanka Nigeria oo Leicester City ugu fadhiyo 27.7 milyan waa la kala qiimo badan yahay laakiin waa la kala xirfad badan yahay